السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال صاحبيال وانيدي سلامي كوسو دوادا channelka cusub subscribe ku dufo like share meel dheer u gaarsii familka la wadaag si dad badan u arkaan. Mowduucan maanta wuxuu ku saabsan yahay in ari la yaab leh ayaa ka dhacay Windsor Ontario. gabar Soomaaliyeed oo loo magacaabo Sahra Buule ayaa ninkeedii dilay. ninkeedii wuxuu ahaa nin ajnabi, magaciisa waa Brian Murphy, I forgot his name. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. 2 sano ka hor 2023 buu ahaa meelahaas bisha May. inantii wala waayay, hooyadeed telefoonkeeda way garaacaysay, way ka qaban weyday telefoonka. marka booliiskii baadigoob ayay bilaabeen. marka magaalada iyo hareeraheeda ayaa la eegayay. markii marxuumkeedii waxay heleen meelaha keymaha markaas wala tacsiideeyay. It's a very sad situation. ninkii iyo iyada waxay isla joogeen 18 sano ka waran. aajkeeda waxa weeyaan 36 jir. inaan yar bay ahayd. ninkii wuxuu ahaa 45 jir markuu dilay. videogan ila daaw put things together in my head to see that this actually happened and this person was responsible. There was a call leaving her phone at 4:20 Saturday morning, and I texted and I thought, why is she up this time? But then Monday I didn't hear from her, and then I texted her and I said, hey, are we still on today? And she didn't respond. At 9 o'clock Saturday night, I sent her a text saying that, hey, maybe you got busy today. Let me know tomorrow when we can get together. And Tuesday morning, police came because the shelter had reported her as a missing person. The reason you wanted to speak to us today was because you wanted to reach other women who may find themselves or may be currently in an unhealthy relationship. What message do you have for them? Not only that, but what I found is that the entire system is not really set up for women that are trying to get out. Because my daughter was really, really smart. And if she saw another woman that happening to her, and to see that she was also a victim, and also it was a struggle for her. saad u jeedin gabadha hooyadeed ay maaragtay CBC la hadlaysay in qisadeeda oo dhameystiran. CBC ayay u sheegaysay, gaar ahaan waxay ka hadlaysay systemka ay ku jirno. dumarka kuwa aabuyu soo maraan ma hiliyaan markay noqoto dhinaca guurka. xaaskiisa haduu xadgudbayo ama aabuyu haduu ku sameeynayo cid maaragtay garab taagaysa ma jirto. meelaha warbixintii soo gudbiyaan way diideen inay hooyadeed inay qisadeeda sheegto, qisadeeda inay faafiyaan way diideen. marka aad baan ku xumahay xaaladii ku jirto. dacwootay marka ninkii trial wuxuu sanadkan bisha 6 ayuu maraya. marka qof maaragtay viral ka dhigayso qisadeeda way weyday. marka garab staag ay u baahan tahay, qof iyada u caawiyo, cadaalad ay u baahan tahay hooyadeed. marka wallahi Soomaaliye hadda qurbaha joogtid ama hadda wadankii joogtid waxa weeyaan xaq baan u leenahay gabadhan hooyadeed inaan garab staagno, inaan u hilino Soomaalinimo iyo Muslimnimo. when somebody is oppressed, you have to win a garab staagtid. hooyadan ba arin xun ajaanib inuu gabdhaheena inay bahdilaan anagu waxaas ma ogolo moqt. marka dhalinyaradii baan sheegayaa, idinka TikTok baad ku badan tihiin. hooyadan shout out u sameey u garab staag. aad baan idin salaamayaa. subscribe ku dhufo, like share, meel kasta gaarsii please. I need a lot to help. الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.